waxaan doonayaa inaan si degdeg ah uga jawaabno iclaan uu bixiyay gudoomiyihii golaha dhexe ee shaqada laga hakiyay 20 December waxaan isagana ku wargelinayaa madaxweynihii shanaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xubinta koowaad ee guddiga fulinta ah in uu nagala soo qayb galo aan maanta halkan ka iclaaminaya Britole oo ay taariikhdu ku beegan tahay 23 December 2025 ahna maalin talaada in uu xarunta dhexe ee xisbiga ka qabsoomi doono shir muhiim ah oo lagu la fuguri doono arrimaha xisbiga marka xubnaha guddida fulinta kaga jira xisbiga xubnaha golaha wakiilada kaga jira xisbiga xubnaha golaha deegaanka ee xisbiga waxaan ku wargelinayaa in ay Britole 8 aroornimo yimaadaan xarunta xisbiga kulmiye wuxuu halkan ka cadeynayaa inuu leeyahay hoggaan iyo fulin iyo maamul iyo kala dambeyn wixii arrimaha shu'uunta ama arrimaha xisbiga khuseeya iyo wixii iclaanana inay xaruntan dhexe u furan tahay warka uu suuqa ka sheegay gudoomiyihii shaqada laga hakiyay ee golaha dhexe oo 20 bisha shaqada laga hakiyay 20 December shaqada laga hakiyay iclaanku suuqa ka sheegay ee uu ugu yeerayo fulinta xisbiga iyo xildhibaanada xisbiga iyo bahweynta xisbiga iyo madaxweynihii hore uu ku wargelinaya xarunta yimaadaan waxaan u sheegaynaa intaabaan u sheegaynaa oo fulinta u sheegaynaa xildhibaanada xisbiga ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiiladaba u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa kaadirka iyo hay'adaha kala duwan ee xisbiga mas'uuliyiintooda u sheegaynaa in iclaankaas aanu xaq u lahayn sharci oo uu isugu yeero waxba kamid jiraanna ay tahay ayaan u sheegaynaa